السلام عليكم magacaygu waa Dr. Ridwan Ali waxaan maanta nasiib u yeeshay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay garansiiyay inaan ka soo qayb galo ballamaan hore sameeyay ilmaha agoonta dhar la'aan uniform ahaayeen dharkii oo mas'uuliyiinta maamulka al-mustaqim iyo diyaariyeen baahida markaas jirtay ilmahaas u baahnaayeen in dhar uniform la siiyo waxa hadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala waafijiyay saddex gabdhood iyo laba wiil in kalena waa inoo dhiman tahay biidnilaahi chanaska fursadaan u helay waxaan ballan qaaday ilaa wax ballan qaadi karo usbuucan soo dhaafnay markaan ilmaha dhaxgalay aan arkay inay uniform dhar aysan wadanin sidaa awgeed waxaan macallimiintii ama mas'uuliyiintii aan la qaybsaday si baahidaas loo xaqabtiro Ilaahay subhanahu wa ta'ala baahi aqabtir karo laakiin wixii markaa laga qaban karo aan ka dhigi karno in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina waafajiyo waana Ilaahay baa mar waliba mahad u sugnaatay wixii markaa aan ballan qaadnay Ilaahayna garansiiyeen maanta ayaan taaganahay ilmahaas in dharka iskuulka la siiyo waxaan si qaas ah aan ugu mahad celinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina garansiiyay ama ay garansiiyay taas chanaskaasna isiiyeen mas'uuliyiinta maamulka al-mustaqim foundation ilmaha agoonta oo gaaray ilaa 300 ku dhawaad oo qaarkood aysan lahayn hooyo aabo qaarna waalidka qaar uu ka maqan yahay sida aabaha ama hooyada oo kale waxaana ummad waliba ama qof waliba oo jecel in ilmaha agoonta u garab istaago waxaan ugu baaqi lahaa in ilmahaas agoonta la garab istaago qaasatan iskuulkaas al-mustaqim foundation raggii intaas u soo dhabar adeegay intaas sana hayay anoona kala saarayna mas'uulka ugu sareeyo iyo mas'uulka ugu hoos la yiraahdo ma jiro qof waliba mas'uulka maamulkaas in alla intii muuqaalkiigaas aragto ama jecel in dadka waxa la qabtaan ilmaha oo agoonta taakuleeyo waxa idinku baaqi lahaa in iskuulka la garab istaago Ilaahay subhanahu wa ta'ala anay garansiiyay had wixii ka dambeeyay inaan garab istaago ayaan waxaan u ballan qaaday ilaa wax ballan qaadi karo inaan ilmahaas garab istaago intii karaankeyga aan awoodi karo aan diyaar u ahay inaan ka qayb galo mideeda kale waxaan jeclahay in iskuulkaas sida hadda wanaagsan ay soo dhaweeyeen al-mustaqim inaan u noqon doono advisor oo dhinaca oo ama la taliye in aan iskuulka garab istaago anigoo dadka qurbaha ku nool in muddo ruuxa qarni ama ka badanba marka waxaan diyaar u ahay inaan iskuulkaas garab istaago ilmaha agoontaas waagi aan bilaabay waa 1998 intii Ilaahay garansiiyo ilmahaas magaas oo bilaabay qaarkood maanta waa reer ay waxbay leeyihiin waa ilmaha agoonta waxyaabaha sida wanaaga ugu dhow wax lagu faa'iido karo ama nabigeena subhanahu alayhi salatu wasalaam oo dadka kala dardaarmay ummadiisa in ilmaha agoonta mar wala garab istaago marka garashadaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala waafijiyay ayaan chanaska iyo ogolaadeen in ilmaha soo garab istaago iskuulka la yiraahdo al-mustaqim foundation marka waxaan idin leeyahay mas'uuliyiinta dhamaan waa idinkaga mahad celinaya sida wanaagsan garab istaagteen ama chanaskaas fursad ay siiseen waan idinkaga mahad celinaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan u mahad celinaynaa Dr. Ridwan Ali oo maxaan ku dhahay aad arkayseen inuu maanta soo gaarsiiyay carruurta agoonta ee halkan taagan saddexda gabdhood iyo labada wiil uniform oo ballan qaaday markuu soo booqanayo maalin hore runtii doctorka aad iyo aad u mahadsan yahay ballan qaadkii oo ballan qaadana uu ka dhaweeyay ficiliyan maanta ayuu sameeyay oo aad arkaysaan marka waxaan leenahay ajri xasanad Allah ka siiyo markasta wanaaga u taagan tahay waana kaaga mahad celinaynaa team al-mustaqim ahaan hadii aan nahay runtii baahidii jirtay markaas aad aragtay inaad ka jawaabtay aad kaaga mahad celinaynaa intaas kadib marka doctorka sidoo kale waa nin qalbi furan oo ma sha Allah markaan soo booqdo maalin hore carruurtaan u arkay waa kana maanta uniform u keenay ilmaha runtii waxay kamid ahaayeen carruurtii bilooyinka ugu dambeeyay cusbaa iskuulka ku soo biiray uniform la'aan ay haysay baahidaas markay jirtay sidoo kale doctorku hadda waa waxyaabaha sida gooni oo nooga wareysto waxa kamid qoysaska agoonta kuwa oo hooyo iyo aaba la'aanta inuu maxaan ku dhahay si gooniya insha Allah ta'ala u soo booqan doono oo ugu warqabi doono marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdana inaan isbuucida soo aadano hadduu Ilaahay yiraahdo aan sidoo kale soo tusno qoysaska agoonta kuwada hooyo iyo aaba la'aanta marka doctorku waa nin maxaan ku dhahay mar walba samafal ka shaqeeyo oo taariikhdaas aad u fog soo wadayna marka aad iyo aad u mahad celinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajra ka siiyo walaalaha kale Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay doctorka ku soo daysadaan waraabka uu sameeyay oo kale soo sameeyay insha Allah ta'ala baahiyo fara badan jiro oo agoonta ay qabaan marka insha Allah la soo booqdo carruurta hal arkashaa maasantiin al-mustaqim foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan carruurta agoonta
oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen. Iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood $180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab. adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisii damaanad qaaday. Waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo, weliba agoonta waa laga dardaarmay. Shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa.